الرحيم barnaamijkeena iska guda galayna insha Allah sidii aan noo jiray kulan aan la yeelanayno wasiirkeeni hore ee wasaaradda macdanta iyo shidaalka wasiir Maxamed Mukhtaar waxa uu mahad celinaynaa sida uu naga aqbalay codsiga u jeedina in dhiirigelin iyo kulan la yeesho sidaas daraadeed barnaamijka waqtigii waa la gaaray ugu talagalnay horaan iskaga sii guda gali doonaa caawa kulanka wuxuu ku saabsanaa doonaa dhowr qayb oo kala qayb dhaweynka bacdi wuxuu naga sheekeyn doonaa 5 sano ilaa 10 sano soo socoto arrimaha shidaalka iyo wixii la xiriira ka bacdi qaab oo su'aal weydiin oo gudbi doonaa ka bacdi waxa ku soo gabagabay doonaa insha Allah talooyin iyo dhiirigelin wuxuu noo hayo wasiirka haatan waxa ku soo dhaweynaa injineer Ilyas oo kamid ah geologistayaasha Soomaaliyeed oo dhalinyarada dhameeyay wasiirka barnaamijkeena guud u sii galno injineer Ilyas soo dhawaad waa mahadsantahay injineer Yaxye alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina Mustafa ama bacd cawada waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa wasiirkeena hore Maxamed Mukhtaar oo naga aqbalay codsigeena waxaan leenahay aad iyo aad agteena ugu weyn tahay mar labaad iyo mar saddexaadna waa kaaga mahad celinaynaa waqtiga qaaliga ah noo furtay AGN waa madal ay ku midaysan yihiin ardayda barata cilmiga barashada dhulka geology adduunka meelo kala duwan ay ku nool yihiin ay ka bartaan saa ognahayna waddankeena wuxuu u baahan yahay dad xirfad yaqaan ah oo geology ah oo badan yani intaas kaliya ma uu ka badan yahay yani baahida uu qaba ka badan sanadba sanad ka dambeysana fildigan uu sii weynaanaya Hello Geo haddaan u soo gudbo Hello Geo waa qayb ka mid ah activitieska ay qabato AGN waxaana hadafkeedu uu yahay in ay isku xirto ardayda barata cilmigan geology iyo dadka Soomaaliyeed khubarada ah aqoonta u leh geology iyo dad u ah xog ogaal maadadan cawada waxaa noo casuuman wasiirkeeni hore oo muddo badan iyo dadaal badan u galay wasaaraddan sida ay u howlgal lahayd petroolka iyo mineralska cawada waxaan rajaynayaa inaan wax badan ka faa'iidi doono in badanna waan sugaynay wasiir ku soo dhawow AGN aad iyo aadaan kaaga mahad celinaynaa waqtiga qaaliga ee noo bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin dhammaan dhalinyarada iyo qabanqaabiyaasha iyo inta ku jirto marka hore waan idin salaamayaa runtii sharaf bay ii tahay in dhalinyaro Soomaaliyeed oo areadan daneynaysa baranaysa rabta inay ka shaqeeyaan rabo mustaqbalka waddanka inay wax ku soo kordhiyaan inaan caaw waqti la qaato aniga sharaf ay ii tahay waan kaga mahad celinayaa wadaagga aad ila wadaagteen haddii aan intaas kaga gudbo haddii la yiraahdo sida uu Yaxye sheegay waxaan rabaa aniga ma sheeganayo inaan geologist ahay soo marka technically ma aha hadalkayga geology iyo manaha ma noqonayo laakiinse aniga waxaan policy maker aan ahaa areadaas waa meesha aan ka soo galay laakiinse waxaan isku dayaynaa inaan aad ugu dhaweeyo manaha meesha ay wax marayaan si aad sawir kaga qaadataan waddanka iyo duruufaha ku wareegsan arrimahan shidaalka dabcan markasta oo arrimo petrol laga hadlayo waa 5 qaybood oo loo kala saaro maana ama exploration ha laga hadlo ama appraisal ha laga hadlo ama development ha laga hadlo maana all these 5 stages ayaa macnaha uu maraa in any country oo rabo shidaalkooda inuu ka faa'iideysto annagana kama duwanin marka annaga Soomaaliya caalamka caadiga uu hadlayo wuxuu yiraahdaa shidaalka macnaha 10 sano ilaa 12 sano ku qaadata celcelis in shidaal waddan uu leeyahay uu ka faa'iideysto laakiin annaga markaad fiiriso maana waqti ka dheer ayuu u baahan tahay sababtoo waxaan xasuustaa markii la sameeyay sharcigan 2008 markii la sameeyay hamiga loo sameeyay markaas waxay ahayd in shirkado shidaal ah heshiis lala galo ayay ahayd maana dadkii markaas riixayay hadda intooda badan ay dhinteen Allahu naxariisto Cabdullaahi Yuusuf dowladiisa xilligaas maana hamigooda markaas ay qabeen waxay ahayd in shidaal la soo saaro
waxaan xasuustaa 2015 waxaan tagay garowe cadda muuse saragna allah u naxariiste cadda muuse uu ii sheekay wuxuu yiri aabahay 1956 markii singaleer ay shaqada ay ka bilaabay Soomaaliya raggii lagu bilaabay ayuu ku jiraa inta shidaal baan hadal haynaay adeero bal anaga markaa wasiir baan ahaa intaana dhiman koor bal aragna idinkoo hal litir oo shidaal ah soo saaray marka waa fahmi karnaa dadka Soomaaliyeed waqti dheer ayay hami u qabaan inuu shidaalka soo baxo marka caalamka caadiga uu hadlayo maana 10 sano ilaa 12 sano la yiraahdaa xilliga shidaalka lagu soo hadlay laakiin annaga duruufteena markii way ka duwan tahay soo marka markasta oo aan ka hadlayno arrimaha shidaalka iyo shidaalka meel fiican u mara iyo hawshiisa bilaabatay kuma garab dhigi karno contextka caalamka kale soo marka horta waxaan rabaa discussion-keena taas inaan ka bilaawno sababtoo ah idinka hadda dhalinyaratiin waxaad u hami u qabtaan iyo hamuuna u qabtaan inaad ka qayb qaataan ka faa'iideysiga kheyraadkaas dabiiciga ee socda laakiin si haddana waaqic kale Soomaaliya ka jiro oo u baahannahay inaan waaqicaas iyo iswaafajino macnaha time frame-ka iyo cimrigiina si isu waafaqi lahayn waxaas oo dhan inaan maanta idin kala sheekaysto caawid kala sheekaysto ayaan danaynayaa haddii la yiraahdo average-ka macnaha marka oo data acquisition kala sameynayo ama data la arurinayo normally macnaha between 2 to 4 years ay qaadataa in our own context marka waxaa jirta legacy data oo mar hore la aruriyay oo ay shirkadaha hadda ay hayaan iyo datooyin cusub oo mar dhow la aruriyay laakiin mainly offshore ah badda laga soo aruriyay marka haddii aan rabno marka horta data inaan arurino manaha 2 to 4 years ay qaadanaysaa celcelisaan in la soo aruriyo laakiin hadda badda Soomaaliya inteeda badan waa la hayaa manaha ka soo bilaw galmudug ilaa iyo Kismaayo dowladda federaalka way haysaa Somaliland data laga hayaa Puntland manaha datooyin meelaha oo qaar waa laga hayaa laakiin waxay u baahan tahay badeedoo kale in oo seismic laga sameeyo u baahan tahay soo marka haddii aan ka hadlayno horta waddanka laftigiisa islama socdo duruufo oo kala duwan ayuu ku jiraa datooyinka dhulkoo kale duruufaha hadda dhulka jira Soomaaliya oo waa ognahay xaaladaha amniga iyo duruufaha ka jira ayada laftigeeda ma saamaxayso waxyaabo badan marka celcelis ahaan marka datooyinka Soomaaliya islama socdaan kuwa hadda diyaarka ah oo hadda aan dhihi karno macnaha kuwa offshore ko kale koonfurta Soomaaliya hadda soo qaadan karno waa diyaar laakiin meelaha kale macnaha Puntland oo kale saan sheegay macnaha way ka dambeynaysaa soo marka hadda hadaan Puntland exploration lagu sameeyo data acquisition lagu sameeyo ama data collection macnaha it will take 2 or 3 years laga yaabaa inay qaadato soo marka horta waddanka islama socdo oo ma aha waddan macnaha hal data laga wada hayo oo hal meel wada yaalo oo lagu saadaalin karo mustaqbalka Soomaaliya iyo sida uu noqonayo ugu hadda ka soo qaad shell oo kale xeebta Soomaaliya waxay ku haysataa macnaha legacy macnaha ayaa jira oo rights ay ku leedahay oo maadaama xilligii intaanu dowladii dhexe burburin 1990kii ahayd laakiin marka aad hoos u soo degto aad garacad ka soo degto ilaa iyo baraawe data acquisition waa lagu sameeyay data cusub waa laga aruriyay laakiin garacad wixii ka sarreeya lagama arurin soo marka taa laftigeeda datooyinka ma sinno oo waxay u baahan yihiin in la simo soo marka celcelis ahaan hadda waxaa socda license round inuu ayaa furan kaba soo qaad marka discussion-kan waxaan ka bilaabaynaa in license round-kaas lagu shaqeynayo assumption-ka inkasta oo uuna saxayn sababtoo ah maana saan sheegay tii Puntland maqan tii Somaliland maqan tii dhulka maqan maana time frame-ka aan bixinayo ma aha time frame sax ama laakiin waxaan ku saleynaa oo kaliya midda data hadda la hayo badda ayaan ku saleynayaa si hadalkay clear u noqdo oo aan hadhow qalad aad kaga fahmin okay kaba soo qaad license round-ka hadda discussion-kiisa u socdo hawshiisa ay socoto in 2021 in la bixiyo ka soo qaad qiyaas ahaan okay badana uu yahay ka soo qaad soo marka haddii minimum kaas aan ku saleyno oo hopefully macnaha wax kale oo siyaasad weyn aysan dhicin wax kale oo dhibaato aysan dhicin macnaha waxaan ka hadlaynaa 2 to 4 years in macnaha exploration stage loo gudbo sababtoo ah already datadii waa la hayaa macnaha hadda uma baanin data cusub of course 3D waa loo baahnaan doonaa laakiin data cusub hadda in la aruriyo 2D looma baahnaanayo already datada way jirtaa soo marka waxaan ka hadlaynaa macnaha waxa waaye waa 2002 ilaa 2004 oo kale celcelis ahaan inay data macnaha exploration stage-kii macnaha ay noqonayso then haddii marka kaas lagu guuleysto then 24 to 26 haddana inay noqonayso appraisalkii macnaha appraisalkii inay noqonayso qiyaas ahaan ay suurtagal ah then markaas kadib baa loo gudbi doonaa development stage-kii oo ah macnaha 2026 ilaa 2028 oo kale celisan mid walba hadduu fiirso medium kan ka qaadanaya macnaha between 2 to 4 years celis la yiraahdaa laakiin aniga macnaha waxaan ku saleynaynaa dhexdan ku saleynaynaa maadaama duruufeena aanan ogeyn exactly
sida ay noqonayaan laakiinse aan filayno macnaha inay wax socdaan oo aanay sidii macnaha 2008 ilaa iyo hadda 2020 aanay wax badan u dhicin aysan macnaha ahayn oo ay wax socdaan haddii taa laga gudbo macnaha constructionka macnaha designingka iyo engineeringka 2026 ilaa 2028 ayay qaadan kartaa then markaas waxaa loo gudbaa haddana constructionkii marka in la sameeyo waxaa ka hadlaysaa 2028 ilaa 2030 so markaasay ku diyaar yihiin platformkii wax alaale wixii aad u baahneed diyaar ku yihiin then kadib unbaad u gudbi kartaa marka productionkii hopefully productionkeena markaas another 30 years inuu qaadanaa so markaas sawirato 2030 ayay Soomaaliya up to the constructionkii ay diyaar u tahay macna wax walba ay u diyaarsan yihiin then hopefully the next 30 years inuu yahay marka productionkii macna in oo soo saara macna 20 years to 25 to 30 years macna let's assume 30 years in it so marka waxaan ka hadlaysaa 20 years hadaa aan ku darno kale waxaan ka hadlaynaa waxa waaye 2050 gaan ka hadlaynaa ogow caalamka hadda macna discussionka inta badan socona macna waxay tahay in la noqdo net zero oo macnaha fuelkan iyo macnaha hydrocarbonka noocan u isticmaalaan in laga maarmo oo loo gudbo ayaa macnaha ay rajada tahay so marka dhankaas pressure weyn ayaa naga haysto oo ah macnaha inuu rabo caalamka inuu ka gudbo ku tiirsanaanshahan hydrocarbonka as energy uu ku tiirsan yahay inuu ka gudbo annagana macnaha inaan diyaar noqono oo waxaan aan dhameysano oo aan macnaha aan construction keena sameysano haddii wax walba smooth noogu dhacaan waa 10 sano from today aan maanta aan hadlayno macnaha 2020 2030 ayay diyaar noqonaysaa then markaas kadib ayay macnaha production ka bilaabanaysaa so the gapka aan haysano marka haddii wax walba smooth ay ku dhacaan waa 20 years sababtoo ah haddii 2050 la filaa inuu caalam ka gudbo waa qiyaas kartaa ka hor ayaa caalamku bilaabaa inuu ka ku tiirsanaanshaha energy-ga noocana inuu ka gudbo haddana waa aragnaa for the last 20 years way soo yaraanaysa ku tiirsanaanshaha lagu tiirsan yahay energy ahaan lagu tiirsan yahay hydrocarbonka oo waxa soo baxay waa macnaha biyaha korontada dabaysha waxa soo aan soo forth so marka idinka marka gaabka aad haysatiin cimriga ahaan hadii la yiraahdo iyo sababtoo ah waxaan qiyaasaa qof 24 jir idinku inuu ku jiro 25 jir macnaha hadda soo dhameeyay masterkii oo macnaha nolol diyaar u ah inuu macnaha sameeyo so qofkaas oo kale marka hopefully asaga wuxuu rajaynayaa by the ilaa 65 sano intuu ka gaaro inuu shaqeeyo macnaha the next 40 years inuu shaqeeyo provided marka intana macnaha maximum life-ka oo macnaha oo ku dhex jiro from 20 to 2050 waa 30 years asagana cimrigiisa oo shaqada hadii ilaahay caafimaad siiyo mana waa 40 years so marka 10 years gaaba already meeshaas kali ka muuqda hadii marka ka hor laga sii guurana mana ka hor mana qofkaas uu shaqadiisa ama skillkiisii aan suuq u baahnaanin so marka waa arrin aan rabo inaan idin highlight gareeyo waxyaabaha jiro oo mana wadanka qaranka markuu uu sameysanayo kheyraadkiisa ka faa'iideysanayo manaha not only lagama fiirinayo kaliya kheyraadkan la soo saaro mana waxa la fiirinayo macna waxay tahay kheyraadkan dadka soo saarayo sida looga faa'iideysanayo manaha jilka imaanayo xuquuqda ku yeelan mana waxyaabo fara badan oo u baahan tixgelin ay ka mid tahay ama hadaa marka inta taas aan just kaga gudbo manaha arrimahan oo shidaalka dabcan badanaa dadku waxay weydiiyaan waxa kamid ah manaha fiscal regime-ki معناها سومالي waxay tiri 20 aan qaadanayna 30 aan qaadanayna shirkadii waxay 70 aan qaadanayna 80 aan qaadanayna mana doodan noocaas oo badan ayaad arkaysaa runtii arintaas hadday socotaa mana fiscal regime macnaha oo settled ah oo la dejiyay oo la diyaariyay oo dhameystiran oo la aqbalay oo la ansixiyay ma jiro soo marka discussionaas waxba yaalid ku mashquulin oo ah macnaha qof wuxuu ku leeyahay 2013 waxa lagu yishii 80% to 20% oo kale معنا صح ما لو كن صدق حتى وحلو شيء مجران حتى هوش أصل وضع وزارة قاعد كويس دولة قاعد كويس مركا أيضا معناها وقت بدن كمدة من صوابته وحنا نجرن معناها ده وقت اللي قمر بنكر of course معناها شدالك سامين أقل ولا سامين سياسي ولا أنا عالم كان مهمة وكلية إن كان مش كان واحد بدنا كوكتين سو مركا كاس وقت بدن كمدة من أي وحنا ربع مركا إن معناها just أنت هابتو مركا معناها مركا ما دو waxyaabaha hadda naga dhiman oo kale hadda petroleum loogu wala sameey laakiin waxa jirto waxyaabo kale oo ayadana shuruuca oo muhiim ah oo aan looga maarmin ha noqoto environmental loogi mana health loogi manaha petroleum industry regulation ki sababtoo hadda waxa la sameeyay waxa way Somali Regulatory Authority gaa la sameeyay laakiin regulations ki oo dhameystiran from A to Z mana wuxuu u baahan yahay diyaar ayuu u baahan yahay health and safety regulations ki asna sidoo kale in laga shaqeeyo u baahan yahay
and so on so marka regulationka oo environment-ga horta marka hore waa in environmental law la sameeyo environmental agency la sameeyo then markaas environmental regulationski la sameeyo so marka shaqo fara badan ayaa macnaha meeshaas ku jirto oo u baahan in la sameeyo marka arrimahaas markay imaanayaan kuwa qaarkood marka waa kuwa macnaha bilowga looga maarmin ilaa iyo dhamaadka macnaha soddonka sano soo socoto macnaha kaba soo arrinta legalka kale marna ma dhamaanayso macnaha arrinta legalka kale marna ma dhamaanayso soddonka sano haddii la yiraahdo ama 40 sano ee Soomaaliya shidaal leedahay maalin walba waa loo baahnaa sababtoo shuruucdii macnaha surveygiska oo dhan in la sameeyo loo rabaa nooma diyaarsano macnaha shuruucdii explorationka iyo appraisalka ayadana waa loo baahnaana shuruucdii waxaa loo baahnaana developmentiga shuruucdii waxaa loo baahnaana productionka shuruucdii waxaa loo baahnaana abandonment marka la sameynayo oo in detail loo baahan yahay sababtoo ah macnaha petroleum lowgan macnaha in detail uguma hadlayo macnaha waa dareemi karnaa soo marka shuruucyo u gooni ah mid walba ayaa loo baahnaana planning and commercialization ko kale macnaha waa in hadda la bilaabo sidii macnaha waxaan sidii loo qorsheyn lahaa sidii loo ganacsi geyn lahaa ayagana kaas ma dhamaanayo from now ilaa iyo the next 40 sano soo socoto inta shidaal uu macnaha laga shaqeynayo ilaa iyo markuu shidaalku soo xirmaba intaas oo dhamaana waxay u baahanaysaa HR ko kale macnaha ma shaqo dhamaanayso macnaha sababtoo human ka shaqeynayo human kaas intuu joogo macnaha wuxuu u baahan yahay macnaha all the stages ka oo shidaalka uu ku dhex jira admin and finance oo kale macnaha lagama maarmaayo macnaha inta uu socdo dhan asna uu ku dhex jira IT go kale sidoo kale lagama maarmaayo macnaha data management-ga ayadana saas oo kale macnaha lifetime ka oo shidaalka dhan way jiraysaa health and safety go kale lifetime ka shidaalka dhan wuu jira geoscience-ka badana marka waa meelaha oo hadda aan rabo inaad idinla darantiin macnaha geoscience-ka oo kale macnaha badana asaga macnaha lifekiisa wuxuu ku eega production macnaha abandonment marka la gaaro wax badan oo jira malaha just macnaha waa closing down waa so marka laakiin muhiimadiisa ugu weyn waa macnaha survey-gi exploration-ki development macnaha all these stages-ka waa meesha uu culeyskiisa uu ku dhacaa kama soo qaad drilling-ka oo kale macnaha wuxuu bilaabanaa asaga marka exploration la gaaro ilaa iyo abandonment oo kale ayuu soconaya and so on so marka negotiation-ka macnaha yaa Soomaaliya kaga qayb galaya yaa matalaya yaa shirka oo macnaha gorgortanka ama shirkadaha yaa fadhiisanaya macnaha lifetime ka dhan wuu jiraa macnaha inta oo shidaal uu jiro macnaha dadkaas wuu jiraa general management oo kale macnaha sidaas oo kale asna mar walba jira governance oo kale macnaha mar walba jira so marka all these issues marka waxa loo baahan yahay marka dhalinyarada soo bixayso iyo skills-ka loo baahnaana iyo waqtiga loo baahnaana in la isku aadiyo oo macnaha hadba duruufahaas jiro lagu saleeyo skill level-ka marka oo loo baahnaana marka maxay tahay macnaha qasab ma aha dadka dhan isku level ma noqonayaan mana noqon karaan so marka meelaha qaarkood macnaha just waxa loo baahan yahay awareness ayaa ku filan meelaha qaarkood macnaha waxa loo baahnaana macnaha basic skills inuu qofku uu leeyahay oo kale macnaha kaba soo qaad IT oo kale inuu qofka uu basic skill leeyahay meelaha qaarkood waxa loo baahnaana intermediate skills oo macnaha ka sarreeya kii basic skill meelaha qaarkood waxa loo baahnaana advanced skills macnaha dad highly macnaha qualified meelaha qaarkood macnaha dad mastery ah macnaha dad experts ah oo macnaha real waxa ay ka hadlayaan waxa qabanayaan aad u yaqaano so marka anaga laftigeena dhalinyaradena soo bixayso waa inaan garan karno levelka ay hawshan ku qaban karaan ama levelka macnaha aqoontooda ay gaarsan tahay oo qaanadahaas ay noogu kala jiraan oo marka macnaha qofka ka soo horjeeda uu yahay qof macnaha qof mastery ah haddii aad u dirto qof basic skills ka haysta arrintaas macnaha negotiation-ka dhexmara ama wada shaqaynta dhexmarta waa qiyaas karnaa sida ay noqonayso okay skills-ka marka general skills-ka oo macnaha area-da looga baahan yahay waa kuwa hadda aan soo sheegay macnaha hadda ha noqoto economist ha noqoto commercial ha noqoto IT ha noqoto data management ha noqoto legal skills ha noqoto negotiation skills ha noqoto macnaha procurement ha noqoto macnaha all this geoscience oo dhan ha noqoto so marka waa waxyaabaha aan looga maarmin ayay ka mid tahay so marka idinka hadda sandareema hal qola u badan tihiin laakiinse macnaha waa inay jiraan waxaas oo dhan sababtoo ah macnaha cid kaligeed dhammayn karta mara kulli wax isku noqonaan complementary isku noqonayaan oo way isdhamaystirayaan okay waxyaabaha macnaha hadda oo Soomaaliya kale baahida goonida ay u sii qabto macnaha markay imaado geoscience ko kale macnaha ama geology ha noqdo ama geophysics-ka waa waxyaabaha runtii aad iyo aad looga baahan yahay macnaha geodetic system-ka asal laftigiisa baahi weyn ka jirto economics-ka macnaha legal and commercial-ka negotiation-ka
maana environmental care all this waa baahi hadda taagan waay sababtoo ah marka negotiationka la galayo teamka waa inay ku jiraan dad maana from different background imaanaya oo waxaas oo dhan fahamsan aqoon fiican u leh maana hadda kaba soo qaad marka aan ka hadlayno exploration stage ko kale oo maanaha wada hadalka BSA uu socdo maanaha Soomaaliya waxay lahayd 2008 wixii ka horeeyay concession agreement lagu bixin jiray xilligii maanaha gaar ahaan dowladda dhexe jirtay concession agreement lagu bixin jiray laakiin 2008 sharcigan uu bedelay oo wuxuu bedelay production sharing agreement marka production sharing agreement-kaas marka agreement-kaas la galay maanaha dadka aad u baahnaanayso waa dad maanaha skills-kooda uu kala duwan yahay maanaha qaar ay yaqaanaan marketing qaar negotiation ay yaqaanaan qaar legal ay yaqaanaan qaar technical ay yihiin sidoo kale maanaha surveys-ka marka ka hadlaysa iyo wells-ko kale maanaha geology geophysics geochemistry geotechnics geodesity maanaha all this iyo logisticada maanaha waa dadka aan looga maarmeyn iyo inay skills-kaas dad leh ay ka qayb qaataan negotiation-kaas oo maanaha fahmi karo waxa laga hadlayo marka appraisal-ka loo galo the same goes hadana maanaha hadana aydan wacna waxay u baahan tahay different sets of skills of course maanaha geology geophysics mar walba jiraan maanaha dad oo yaqaano maanaha markaas maanaha waxa oo dad engineers ah reservoir maanaha facility production ki fahmi karo waa inay jiraan development marka la gaaro aydan the same goes maanaha dad kala duwan oo fahmi karo financing markaas ku jiro agency ku jiro health and safety ku jiro all this maanaha loogama maarmay and so forth maanaha stage walba oo loo baahan yahay ilaa abandonment-ga laga gaaro waxa loo baahnaana dad oo skills gooni ah u leh okay anaga marka maxaan haysto waa soo gabagabeynaa sababtoo waxaan rabaa in aan su'aalaha jawaabaha wax badan kaga jawaabo hadii la yiraahdo maxaa anaga Soomaaliyeed haysto horta midda koowaad aan haysto macnaha waxay tahay political stability sahdaayt sheegay sharciga shidaalka 2008 yaa la ansixiyay rajada waxay ahayd by this time Soomaaliya inay shidaal soo saarto sababtoo ah 12 sano ka soo wareegatay haddii wadan caadi aan ahaan lahayn oo sharcigaas aan samaysan 2008 oo duruufeyn caadi ahaan lahayd hadda macnaha shidaalka stage-ka la soo saar lahayn joognaa laakiin waa u jeedna meesha aan taaganahay maanaha wadan hadda shidaal soo saari kara man 12 sano ka soo wareegatay markii sharciga shidaalka la ansixiyay soo marka horta waxyaabaha u baahanaa waa political stability-ga okay at same time macnaha rajada aan ka qabno inaan shidaal helnana waa inaysan noo keenin caqabad cusub oo ama macnaha colaad cusub oo dalka dib ugu laabto waxyaabaha aan u baahana waxa kamid ah dastuurka dhameystirkiisa oo kale dastuurkan hadda saa ogtiin waa qabyo macnaha in aan la dhameystiro ayada laftigeedu waxay u baahan tahay inaan heshiis aan siyaasadda Soomaaliya ka gaarto la ansixiyo petroleum macnaha lowski oo dhan ama macnaha kuwii taageeraya lowska kale hadda aan sheegayna macnaha environmental lowgi iyo waxaas oo dhan ayagana laftigooda macnaha waxay u baahan yihiin dhameystir ayay u baahan yihiin arrintan revenue sharing-ka waxaan wada hadalkeeda soo bilawnay 2015 waxaynu soo gabagabowday 2018 macnaha 3 sano ay qaatay laakiin saas way tahay fari kama qodno macnaha wax badan ayaa dhiman oo Soomaaliya ka soo qaad fiscal federalism-kii oo kale macnaha weli meel lama saarin macnaha dadka la dhahayo macnaha intaas qaataan laftigeed waa inay imaado mas'uuliyadii waa inuu jiro national budget macnaha waxyaabo badan jira hadda Soomaaliya waxa laha dadaal badan ugu jira debt relief-kii ama fintii deynta macnaha waxaas oo dhan ayaa macnaha u baahan in inta la isku xiro ay hal shay isku noqdaan man suurtagal maaha macnaha revenue-ga ka imaado ama dakhliga ka imaado shidaalka ayaan si gooni ah u isticmaalaya inta kale shaqo ku mari macnaha sax maaha regulationski iyo lowski iyo agencies-ki naga dhiman oo dhan inaan samaysano waa macnaha waxyaabaha aan looga maarmeyn macnaha inaan helno si aan dadka aan u helno marka in any case macnaha ha noqoto macnaha business skills-ka aan u baahanahay macnaha ha noqoto negotiation-kii macnaha general management-ga governance-ga planning-ka commerce-ga economics all these were business skills-ka looga baahan yahay ay haystaan inaan haysano qaran ahaan dadka Soomaaliyeed aadka ugu faa'iideysano idinka marka as technically mana waxyaabaha oo dadka technicalka aan ugu baahana macna waa ha noqoto finance marka imaado IT ha noqoto data management ha noqoto geophysics ha noqoto geology ha noqoto petrophysics ha noqoto manaha drilling ki facilities ki production engineering ki production accounting all this manaha different background dadka iskale waa dadka technical skills-ka oo qaranka Soomaaliyeed u baahan yahay si aan kheyraadkeena kaga faa'iideysano marka just macnaha waxaan dulmarayay macnaha maadaama idinka aad tihiin dad oo technician aad tihiin roughly waxa qaranka Soomaaliyeed u baahnaanayo macnaha the next 10 years haddii la yiraahdo then markaas kadib hopefully inay xaaladda siyaasadeed degan tahay hopefully macnaha in sicirka shidaalka iyo baahida shidaalka loo qabo ay weli taagan tahay oo ay fiican tahay markaas kadib baan u gudbi karnaa inaan kheyraadkeeda ka faa'iideysano macnaha inta kale haddii la insha Allah su'aalaha ay soo